waxay horta halkan ka heli doonaan waxa weeyaan adeegii wakaaladda biyaha ay u doonan jireen oo dhammaystiran ayay ka helayaan hadday biil tahay hadday tahay maxaa heeday lacag bixintii hadday tahay maxaa heeday farsamo yaqaanintii oo markiiba kulley eriyada jooga oo aan ka fogeyn markii horeba iyagoo degmooyinka joogay xaruntan cusub ayay wakaaladda biyaha Hargeysa ka furatay degmada Maxamuud Haybe ee magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada Maxamuud Haybe qaybo ka mid ah iyo waliba maari ku-xigeenka wakaaladda biyaha Hargeysa Cismaan Cabdilaahi Hirad goreen goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshada degmada Maxamuud Haybe oo ka mahad celiyay xafiiska cusub ee wakaaladda biyaha Hargeysa ay ka furatay degmadani sidoo kalena waxaa halkaas ka hadlay maari ku-xigeenka wakaaladda biyaha Hargeysa Cismaan Cabdilaahi Hirad waxaana ka mid ah hadaladoodii xafiiskan cusub ee wakaaladda biyuhu ay ka furtay Maxamuud Haybe oo in badan oo hore aad loogu baahi qabay laakiin aan leeyahay maanta midkan meesha waa leeka waana asiibeen aad baan u soo dhaweynaynaa ka xaafad ahaan iyo ka odayaal ahaan waxaananu aad u dareemaynaa in adeegii ay wakaaladdu ka qaban lahayd xaafadda inay imika meel gaaban oo ay wax ka qabsan ama lacag bixin ha noqoto ama adeega kale farsamo ha noqoto ama dadka iyo soo dhawaantiisaba ha noqotay inuu yahay xafiis aad loogu baahnaa waxaanu leenahay waa mahadsantiin kolley waa jireen dhibaatooyin badan oo xaafaddu ay xagga biyaha ka tirsanaysay biyihiina waa kuwan imika inoo bilaabmay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa cidda farsamo yaqaanka ah cidda xafiiska fadhiisanaysa qolo waliba shaqo hufan inay xaafadda keeni doonto baahiyaha xaafaddu ayagoo iska fara badan yihiin markaad wax maanta xafiiskii wax uga baahato waxa weeye dee halkan baad maanta laga helayaa waxaan u doonan jiray marka hore xafiiskii weynaa baanu qaban jiray ama meel aad iyo aad runtii nooga durugsanin laakiin maanta xafiiskan halkan la nooga furay ayaa baahiyaha xaafadoo dhan magaranaysa ayaa aanu rajaynaynaa inuu daboolo waxa weeye maanta waxaan kaloo aad ugu faraxsannahay biyihii oo inoo soo kordhay oo inoo soo siyaaday taasna aad baan ugu faraxsannahay waxaana rajaynayaa in xaafadaha kale ee oomana ee aan biyaha heli jirinin in ayaguna maanta biyahaasi inay wax ka gaadhaan biyihii weynaa halkan waxaynu isugu nimi xaflad aynu ku furayno xafiis ay ka furtay aanu ka furray maanta degmada Maxamuud Haybe oo ka mid ah degmooyinka caasimadda Hargeysa degmadaasoo meelo fogfog adeega markii hore u doonan jirto xafiisku uu jiro in fara badan kolley dadkuna ay basas badan iyo wax u raaci jireen dhibaato badan ay ka qabsan jirtay waxaanu garannay in muddo ah baanu ka shaqaynaynay sidaanu xafiiskan u furi lahayn oo aanu ugu dhoweyn lahayn degmooyinkao dhan maaha tanoo qurhe adeegga sidaanu ugu dhoweyn lahayn waxay horta halkan ka heli doonaan waxa weeyaan adeegii wakaaladda biyaha ay u doonan jireen oo dhammaystiran ayay ka helayaan hadday biil tahay hadday tahay maxaa heeday lacag bixintii hadday tahay maxaa heeday farsamo yaqaanintii oo markiiba kulley eriyada jooga oo aan ka fogeyn markii horeba iyagoo degmooyinka joogay waxyaabahaasoo dhan baa lagala xidhiidha waxa la yaala wixii baahi jirta ee wakaaladda biyaha looga baahnaa waxa lagala xidhiidhi doonaa xafiiskan wakaaladda biyaha Hargeysa ay ka furatay degmada Maxamuud Haybe ayaa ku soo beegmaya waqti dhowaan xadhiga laga jari doono mashruuca biyo ballaarinta ee magaalada Hargeysa oo dhamaaday Luqmaan Maxamed Faarax MMTV Hargeysa.